maanta way taariikhdu tahay 9 bisha 11 sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirka cusub ee Jamhuuriyadda Finland ay u soo magacawday Soomaaliya mudane Birka Tabiola. ugu horeynba danjire Tabiola waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda soo gaarsiiyay salaan iyo dhambaal uu ka waday madaxweynaha Finland mudane Sauli Niinisto. waxa uu sidoo kale ka mahadnaqay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran ee ay u muujiyeen, isaga oo soo bandhigay qorshayaashiisa ku aadan sidii uu u horumarin lahaa una dardargelin lahaa xidhiidhka ka dhaxeeya labada dal. madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo danjire Tabiola waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dal, kaas oo ku dhisan iskaashi iyo ka wada shaqayn danaha dheelitiran ee labada qaran. madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa danjiraha cusub la wadaagay horumarka muuqda ee la taaban karo ee shacabka iyo dawladdu ay ka soo hooyeen dhinacyada dib u dhiska dalka, dib u heshiisiinta, dib u habeynta ballaaran ee lagu sameeyay maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyaddu ugu hambaliyay danjiraha cusub xilkan loo magacaabay, isagoo u ballan qaaday in shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku garab istaagi doonaan danaha diblomaasiyadeed ee loo igmaday.